doona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay in ka badan 90 duulimaad oo Imaaraadka Carabta iyo Dubai isaga kala gudbay saanadaha dhanka militariga ee Imaaraadka Carabta ku taageeray Ethiopia ee macluumaadkeeda iminka banaanka la keenay. Mareykanka oo heegan geliyay 3 ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka ee ku sugan bariga dhexe maxay tahay sababta? Wararkii ugu dambeeyay Suudaan oo warcad ka soo saartay dagaalada ka soconaya waqooyiga Ethiopia, dowladda federaalka ee Ethiopia oo guulo la taaban kara ka sheegatay dagaalada, iyo sidoo kale jabhadda TPLF oo xoga cusub iyo faahfaahin dheeraad ah ka bixisay dagaalo ka dhacay deegaano ku yaala koonfurta gobolka Gondar, iyo qodobo kale ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marcadda Show. Ku soo dhawow mar kale barnaamijka kana dhiib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsan tahay. Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya macluumaad ku saabsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta in ay taageero dhanka militariga ay siinaysa beelay ugu dambeeyay dowladda federaalka Ethiopia fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa, iyadoo banaanka ay keenayaan macluumaadkaasi warbaahinta Al Jazeera ayaa baahisay sawirro satellite-ka lagu qaaday iyo muuqaallo qarsoodi ah kuwaas oo muujinaya in dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ay furatay buundo dhanka hawada si ay u taageerto ciidanka militariga ee dowladda Ethiopia ee dagaalka kula jira ciidamada ka soo horjeeda ee Tigreega ee ku sugan gobolada waqooyi ee dalka Ethiopia. Baaritaano ayaa sheegtay warbaahinta Al Jazeera inay ku ogaatay intii u dhaxaysay bilihii September iyo November in ay jireen in ka badan 90 duulimaad oo isaga kala gooshay Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta. Macluumaadkii ugu dambeeyay ayaa warbaahinta Al Jazeera waxay ku muujisay in dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta saanada militari ay u qaybisay ciidanka dowladda federaalka ee Ethiopia si ay uga guuleystaan dagaalada ka dhacaya waqooyiga dalka Ethiopia. Qaar badan oo ka mid ah diyaaradahaas ayaa sidoo kale waxaa la sheegay si toos ah inay kaga soo duuleen gudaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyagoo ka degayay gudaha dalka Ethiopia. kaliya Imaaraadka Carabta warbaahinta Al Jazeera kuma aysan eedeynin taageerada dhanka militariga, laakiin waxay sheegtay diyaarada laga leeyahay Spain iyo Ukraine inay qayb ka ahaayeen qorshaha Imaaraadka uu ku daabulayay hubkii ugu badnaa ee lagu taageerayay ciidanka militariga Ethiopia. Imaaraadka waxa uu fuliyay howlgalkaani ballaaran oo gacan ay ka siinayeen 2 shirkadood, gaar ahaan maraakiib gaar loo leeyahay, waxaana iskala markabka koowaad shirkad laga leeyahay gudaha dalka Spain. In ka badan 54 socdaal ayay maraakiibtaasi ay sameeyeen, kuwaas oo la sheegay inay saanado militari ay ka soo qaadayeen Imaaraadka Carabta iyagoo keenaya gudaha dalka Ethiopia muddo bil gudaheeda, inkastoo taasi aanay suuragal noqonaynin. Sidoo kale diyaarada laga leeyahay dalka Ukraine ayaa lagu waramayaa in loo adeegsaday daabulida hubkii ugu badnaa oo Imaaraadka Carabta ugu deeqay ciidanka militariga ee Ethiopia. 39 duulimaad ayaa la sheegay inay sameeyeen diyaaradaha laga leeyahay Ukraine, sida xogaha macluumaadka uu ku baahiyay telefishinka Al Jazeera.